saacadihii ugu dambeeyey waxaa gudaha magaalada Jigjiga ku soo qulqulayay wufuud kala duwan oo ka kala socotay dowladda federaalka ee Itoobiya iyo dowlad deegaanada kale ee dalkani Itoobiya. Wufuudda ilaa hadda soo gaadhay magaalada Jigjiga waxa ugu tun weyn ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed Cali, ku-xigeenkiisa Damaqa Mokonad, madaxweynayaasha dowlad deegaanada iyo wasiirada xukuumadda Dr. Abiy Ahmed Cali oo ka tirsan guddiga fulinta ee xisbiga barwaaqo. Ujeedka wufuuddan ayaa ah inay ka qayb galaan shirka guddiga fulinta ee xisbiga barwaaqo oo markii ugu horeysay abid lagu qabanayo gudaha caasimadda deegaanka Soomaalida ee Jigjiga. Tan iyo intii isbeddel ka dhacay Itoobiya inta la og yahay waa shirkii ugu meeqaamka sarreeyay ee lagu qabtay deegaanka Soomaalida. Wufuudda ayaana isla markiiba soo dhoweyn kadib la geeyay goobta uu shirku ka dhacayo. Inkastoo ay warbaahintu dibadjoog ka tahay, haddana waxaa la filayaa in qodobada ka soo baxa shirkan lala wadaago dadka shacabka ee Itoobiya. Sidoo kale waxaa iyaguna 24 saacadood ee u dambeeyey xidhnaa waddooyinka halbowlaha u ah magaalada Jigjiga, kuwaas oo aanay haba yaraatee marin wax gaadiid shacaba. Sababta waddooyinkan loo xidhay ayaana lagu sheegay in loo baneeyay wafdiga imanaya magaalada Jigjiga ee ka qaybgalaya shirka guddiga fulinta ee xisbiga barwaaqo. Isku soo wada duuba shirkan ayaa 2 maalmood ee soo socda ka sii socon doona gudaha magaalada Jigjiga. Wixii wararee ka soo kordha halkan kala soco MMTV. Aydruus Xayd Gool, MMTV, Jigjiga. shirkadda isgaadhsiinta casriga ah ee Somtel abaalmarinta macmiil noqo milkiile in ka badan 14,000 oo macmiil ayaa ku guulaysan doona hadiyada ay ka mid tahay maalgelin u dhaxaysa $1,500 ilaa $20,000 Mareykanka. Ku shubo $0.5 ama $0.5 oo kaliya oo isticmaalaya adeegga iDahab.